بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 407 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. رواه البخاري ومسلم. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taarikhda islaamka ay tahay 29 bishii 7 Rajab sanadka 1445 isla markaana waafaqsan 10 bishii 2 sanadka 2024. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray al-muntakhab min sahih sunan nabawiyya, qaybtiisii mucaamalaadkii iyo gabagabadeedii, khaasatan arintii aan ugu magac daray 10 asbaabin tajmacu laka ad-dunya wad-din أو تضمن لك الغنى وكثرة المال. طبعا الرمود وكل ما نقاضيسا غنينمو iyo maalqabeennimo ama adduunya aakhiraba ku jamcinaysa. waxaanu soo maray ilaa 3 arrimood baanu ka soo hadalay. tii u dambeysay wuxuu ahaa at-tafarruq lil'ibadati wal-iqbal ala Allah, inuu qofku qalbigiisa iyo maskaxdiisa iyo hamigiisa oo dhan Ilaahay tawxiidkiisa iyo cibaadadiisa iyo taageerada diintiisa iyo daacadiisa uu ku mashquul hamigiisa oo dhan uu ka dhigo. maanta waxaan qaadanaynaa in qodob afraad oo waxaan leenahay as-sadaqatu wal infaq fi sabilillah sababun li sa'ati ar-rizq. sadaqada uu qofku bixiyo iyo infaaqa fi sabilillah alla darti iyo jihaadka wax ku bixiyo iyo sadaqada iyo awjuhda iyo ridaha khayriga oo wax ku bixiyo masaajid la dhiso, agooma la infaaqiyo, masaakiin wax la siiyo, gidi waxaasoo dhan waxay sabab u noqonaysaa risqiga inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku waasiciyo oo risqigaadu uu Ilaahay waasac ka dhigo, kuu badiyo maalkaada ama uu kuu barakeeyo. ciwaanka marka midaasoo noqonay as-sadaqatu wal infaaqu fi sabilillahi sababun li sa'ati ar-rizqi. sadaqada uu qofku bixiyo, infaaqa fi sabilillahi wax ku bixinayo, sabab waxay u noqonaysaa inuu Ilaahay risqiga ku waasiciyo. xadiidkeennan axaadiid badan iyo aayaad badan baana ku soo arooray arrinkaas. xadiidkan aanu soo qaadanay waa xadiid yaroo kooban, laakiin xadiid cadiima weeyaan. xafi iyo boorin iyo bini aadamka uu Ilaahay ku boorinayo, jeclaysiinayo inuu wax bixiyo iyo ku tusinaya. xadiidka Bukhaari iyo Muslim baa soo saaray. inta markaanu ka gudubno macnaha xadiidka muxuu yahay. xadiidku waa xadiid al-qudsi weeye. nabi maxamed baa rabbigii ka warinaya wey. idan waa darajaadka ugu sareeya axaadiis. rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, qaala allahu tacaala, ilaahay baa wuxuu leeyahay isagoo bini aadamkiisa la hadlahaya: anfiq bixi yabna aadama, ina aadamow wax bixi oo sadaqayso. unfiq calayka, anigana waan ku nafaqaynayaa, bimacnaa tacwiid iyo bedel baan anigana ku siinhayaa wey. unfiq calayka idan waa jawaab iyo shardi wey. amar anfiq baa leeyahy, bixi ya bni aadam, dalab weeyaan, amar la amrahayo bini aadama wax bixi. unfiq calayka, anna markaasaan bedel ku siinhayaa. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidkan xadiid cadiima wey. baabkii uu ka hadlayana waa baab weyn oo cadiima wey. alinfaaq fi sabiilillahi iyo sadaqo iyo ridaha khayrka ee faraha badan oo masaakiin wax la siiyo, agoomo wax la siiyo, jihaadka Ilaahay wax lagu bixiyo, masaajid la dhiso, dadka tabarta yar loo naxariisto, ceelal iyo biyo dadka meelaha biyo la'aanta ay ka jirta laga sameeyo, madaaris la dhiso, jaamacado la dhiso, waa fara badan yahay awjuudul khayrka. ninba meesha kutub la akhristo oo cilmi uu qofku daabaco وهكذا. إذن أوجه خير كها يا بني آدم وحالي بحي والله ليه أنا وحبان ما أرتكسين هياي. إنفاق بني آدم كالأمر علماء وحيدهن وحول لبضو وحسوق لكي واجب ككوها يكي تضوعها. إنفاق واجب ككوها وحي بيل أما واجب سارها دي مصروف عرور ليه يا درهير له مصروف كي واجب كي سارها يوم أرتوي سوق لي
حاكلو سوق لهيا كي تطوع هانا وسوق لهيا حاسوق لهيا حقوق دي لغولها يو زكدي يا حقي لغولها وسوق لي كي تطوع هانا وسوق لهيا مركا أنفق بحي ويا ابن آدم إن آدم وروح بحي أنفق عليك. إذن الإنفاق من الله سبحانه وتعالى حاول أعوضه لك وأعطيك خلفه ما أرتي خلفه يعني بدل بانكوسين هياوي إنفاق من الله وحاويان ما أرتي إنه سي الله سبحانه وتعالى نكا وحبحيي بدل خير قبوي بدل إنه سي محيالي وحاكا رسوقناضي ما أرتي قرآنك يا ما أرتي أرنتا توسو وعد هاي وحديثك فصيرها يو الله سبحانه وتعالى وكيله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وحد بحسانه من شيء وأنا كروي هذا يرى هذا هدو دون وعلى لوحد بحس بني آدم لكن بحا شرطئة إنه مالك بحنيس حلالي هاي إخلاصي إلهي درتين هذو بحنيس ماشي تكون بحسانه أوجه خير هاي تاي صدح هذا شرطئة واحد بحنيس وإنه حلالي هاي مارتي نيادة تكون بحنيسنا وإنه داع النماء يا خالص نماء تاي ماشي تكون بحنيسنا مال بنان وإنه تاي marka Allah wuxuu yiri wama anfaqtum waxaad bixisaan min shay ay shay aad marfaqaysan oo sadaqaysataan fahuwa alla yukhlifuhu khalaf iyo badal buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin sameeynaya. Ilaahay quraankiisa in badan buu markaa kaga hadlay wa anfiqu fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum yani waxay dhahan culimadu inta Ilaahay aayaadka uu kaga hadlay infaaq dhamaan iyo jihaadka wuxuu hormariyaa baa la yidhi hal aayad mooyaane inta kale waxa la hormariyay baa la xoolaha wa anfiqu fi sabili bi amwalikum baa laga hormar wa anfusikum baa marka ku xigi marka ahmiyada maalka in dacwo loo adeegsado iyo khayrka loo adeegsado ahmiyada uu leeyahay iyo xoogiisa ku tusinaysa. sidoo kale nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ka sugnaaday markuu dadka ka hadlayay bini aadamka adduunyada a'la darajat أفضل الدرجات كأوصل رأيا وحال السيئي قفك متصدق صدقة لبح حديث كي لما أرتى أبو كبشة الأنباري وترمذي وصوصار صحيحها نبي مركز هذا وحول إنما الدنيا لأربعة نفر الدنيا ذو أفر قف بي أسقناتي بل دقيست هالكاس وأنا أركي دونا حديث كا ونائبا دونا إنما الدنيا لأربعة نفر أفر قف باي الدنيا ذي كسا ورسميسا بكاسا نبي وحوجي لي كي كوبات عبد وتكبد ليس الدون ككوبات نبا الله شيء هدي دمر كون والله مدوي رزقه الله وكو رزاقه مالا وعلما وقف إلهي سودر مال إيا علم اللبضبا أقون دينيت إيا مال بو إلهي سودري محو سميا فهو أسو يتقي فيه ربي وقعب سنة يا حولهاس يعني مال با إلهي سيئي علمنا واسيئي وكما ملو فهو يتقي فيه ربي جيبو مارته وقبقها يا مالكاس ومارته وإلهي سبحانه وتعالى وددي سيبو مرينها ويصل فيه رحمه قرابدي سنة وكحريريا ويعلم وحوقها لله فيه حقا مارتي حق إنه إلهي مارته وقصنا ذي حولها فهو ninka noocaas oo xoolaha ilaahay siiyay Allah ooga baq oo qarabadiisa ka xiriiriya oo xuquuqda ilaahay uu maartay yeelayna oo waajibkii iyo tii kalaba maartay og maartay ka bixiya فهذا من أفضل المنازل والنبي عليه الصلاة والسلام درجات كمدة أغفض للبضان وياه ودرجات كأغفض للبضان لنا عكلا أهمية إلى ذاي حولها إن مارت مالك الله بحيو النفط أي كم إنه نفط كم مهم سيء حديث أبو داود صحيح النبي وحده عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم صدح الرموت بالي قال هذا كل الدقالما وصدح هبوه سيأكله الريان بين أكل حوق بدنيهن النبي يقول جاهدوا المشركين مشركين تيا قال هذا كل الدقالما بأموالكم حولهن حولها كل الدقالما أقوى سلاح ما أنت الله استعماله ومالوي قفكم مركب باهي هاي إنه قمدوي قب معه وحي الله دونا لقى سما يسنكره عالم الإسلامي
أما أفريقيا وحي لبا بأسين وكرسوا كعلان وباهي ذوي إذا باهي وعدو وقفا إذا سنهيا مركا النبي وحيري جاهدوا المشركين بأموالكم حوليهن كل الدقالما حولها كل الدقالما حوليه بالقول الدقالما هي إذا حولها بحينيسا وعيدمدي باد سينيسا وعيدمدي وحي وباهنايين باللوغو قدي ووحا اللالي وحي مركا لو أدك سنهيا وعدو تشبس كيسا مالكين كل الدقالما للمشركين iyo wa anfusikum darajada labaad nafti baa la soo geliyay nafta deena maal wadanin ciidanku moral iyo wuxuu ku dagaalamaa iyo dhaqaale baahidiisa isbitaalkiisa cuntadiisa wax allaale iyo wixii baahidiisa u baahan yahay markii laga qabtiro oo loo dhameystiro ciidankaas wuxuu noqonayaa ciidan moral loo dagaalamay maartay oo soo noqonayn marka jaahidul mushrikiina bi amwalikum xoolihiina kula dagaalama wa anfusikum naftiinana kula dagaalama iyo waalsinatukum carabkiina saddexdaa hubba isticmaala li marka xoolaha ugu horeeya nafta ku xigta carabka u dambeeya carabka waa difaaci weey iyo hujuumka iyo wax qoraalka iyo waxa soo dhan weey idan waxaan oga jeedaa maalkii baa la hormariyay maalka ayaa la hormariyay waa arin aad iyo aad marka muhiim waa sidoo kale nabigeena kaleey salaatu wasalaam waxa ka sugnaaday inuu yiri subax kasta waxa maartay oo bini aadamku u waabariisto waxa soo degahaya malakani laba malag baa soo degay subax kasta laba malag baa soo degi midkood marka midna wuu habaartay midna wuu ducaynaya mid wuxuu leeyahay allahumma a'ti munfiqan khalafa ilaahayo midkii wax bixiyay khalaf iyo badal khayr qabasi kii kalena wuxuu leeyahay allahumma a'ti allahumma a'ti mumsikan talafa ilaahu ninkii haystay oo waxba bixinin baaba iyo burbur iyo xoolaha maartay Allah ka baabi buu leeyahay idan waa duca iyo habaar waa subax kasta weey culimadu waxay dhahay xadiidka markay sharxayeen habaarka qofka la habaarayo waa qofka waajibaadka aan gudanin weey ee sadaqada sunnada lagu habaari ma hadaada bixinin ee markii la leeyahay Allahumma a'ti mumsikan talafan ilaahu kii aan waxba bixinin baaba ka dhig xoolihiisa ee maartay waxa weeyaan zakadii lagu lahaa masruufkii lagu lahaa waajibkii lagu lahaa la rabay inuu u saciyeeyo bixinin way ka way midku abaar ku dhacay idan ikhwati fillah aan ka hadal sadaqada iyo khayrka ileeda iyo fawaa'ideedu aad u badanta nabigeena kaleey salaatu wasalaam waxa ka sugnaaday inuu yiri ahabbu naas ila allah anfa'uhum lin nas dadka kuwa ilaahay ugu jecel yahay waa kuwa dadka u nacfi badan wa ahabbul a'maali ila allah sururun tudkhiluhu ala muslimin takshifu anhu kurbatan أو تقضي عنه دينا أو تدرد عنه جوعا إلى آخر الحديث يعني النبي وحول عليه الصلاة والسلام هذا ما أما مسلمين إلهي وحوق عليها كأو في بضن حوله سومتك وانفعها علمك سوك وانفعها أركتدي سوك وانفعها حوقي سوك وانفعها ويا أرقنمتك سوك وانفعها أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله أعماشك إلهي وحوق عليها واجبك مركي لغا صوت تقوي سرور تدخله على مسلم قف مسلم او فرح جلسي قف مسلم فرح جلسي markaas wuxuu nabigu tiriyay dhamaan waxyaabaha maartay anfacahay qofka muslimka acmaashi gudbaysa oo mujtamac wax loo qabanaya maartay markaas nabigu wuxuu takshifu anhu kurbatan kurba iyo culays hayay ayaad ka faydaysaa kurba maal haday ahayd oo maartay culays maal iyo wax ku hayay oo aha kurbadii baad ka faydaysaa أو تقضي عنه دينا أما الدين لغولها بات كقوديسا أو تدرد عنه جوعا أما باهي هيسا بات كقودنيسا باهي هيسا صدح عمله وحاويان مجتمعي أقود باي من هنا بقى حلقة قادنها يا بيدان علماء عمل كخيري وحي عن واجب كاهين صنها عمل بعمل كمجتمع أقود بتان بدنيه وكفض بدنيه تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدرد عنه جوعا وكربا لفيدي دين قف لغا بخيي غاچ قف لغا قوديي انتم مجتمعي وي مركز النبي عليه الصلاه والسلام حديث كطبراني با سو صار من حديث انس بن مالك وي وانا حديث امارتي صحيح النبي عليه الصلاه والسلام ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه له حتى اقضيها احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا او كما قال عليه الصلاه والسلام
walaal muslima inaan raaciyo nabi maxamed yiri oo dan uu lahaa aan la soo dhameeyo ayaan ka jeclahay inaan masaajidkayga bil ictikaafsanaada ictikaafka masaajidka la ictikaafood garanaysan fadliga iyo wanaagga iyo qiimaha uu leeyahay haddana masaajidka nabiga ah oo halkii salaad lagu tukado 1000 salaadood ay ka fadli badanta ومع ذلك وحول مساجد كيغون اعتكاف وحان كجعلهاي مسلم إنان دان لا سو دميو علماء waxay dhahan اعتكاف waa fadli badan laakiin amalkiisu shakhsiga sameeyay bas uu ku egyahay qaasirun ala saahibi amma qof in dan la soo dhameeyo waa amal gudbahayo way wax qabadkii umada way idan ikhwati fillah bishi barakaysnayd ramadaan way nagu soo socota waanu ka hadli doonaa haduu ilaahay yiraahdo marka sadaqada aan u soo noqona mawduucan الصدقة والإنفاق في سبيل الله سبب لسعة الرزق يعني إنه قف واحد صدقة يستو هاي راد هبطناه أو جهدي ودوين كخير إنا وحكوم بعزي أسبابها الرزق إلهي كو واسعية كمت أما مالك باب إلهي كو بذن أما إلهي بابا كو بركين با إلهي بابا كو بركين أما كو بذن لبضي با أما لبضي وسكو كادري مرك إخوتي في الله أرنتاس خاصة أنك مجتمعنا الصومالي ومجتمع فقير وي انت وحيسته اد بيرتay nool maalmoodkooda inta haysata way yariin aqlabka mujtamacu waa sida afrika iyo muslimiintu badan yihiin waa wada fuqara way marka qof kasta wuxuu dadaali intuu kari karo inuu dadaalo waliba khaasatan qaraabada zakada aad bixinaysi sadaqada aad bixinaysi qaraabada ba ku ya maartay mudnaan badan qaraabada si mudnaan badan hayl nabi wuxuu yiri silatu rahim iyo sadaqa labadaba ku noqonaysa sadaqada oo la bixiyo iyo khayrka iyo wanaagaas oo maartay la beegsado qulubta ayaa ku jilcaysa danta aad leedahay dunya aakhiraba ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ku gaarsiinaya hadithkii marka Abu Darda oo kii nabiga lahaa Abu Darda oo nabiga alayhi salatu wasalaam atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrik haajatak war qalbigaadu inuu jilco danta aad leedahayna inaad gaadhi ma jeceshahay irhamil yatiima وامسح رأسه وادعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك النبي عليه الصلاة والسلام أبو دردو قلبك هذا إنه تشلعه دنت الله هينا إنها تقادي ما تشعشهاي نعم وي نبي صدح الرموت بو الشيغي وعمل أمدي والوقبان هيا أقول كأونا حريصه مدحنا الصلاح وحيات هي ستي أو راشين أنا وحكسي قلبك هذا ونقلان هيا دنت الله هيا وناقنا واتقاريسا إلهي سبحانه وتعالى وحودي سننا بأسماء الحسنى والصفات العلى إنه حقا نتصنون إرزاقه حقا راعتان كيس الصدقة والإنفاق في سبيل الله سبب لسعة الرزق وي وطبعا كأرموت يقفك هدو مارتي وكل رقمه الدنيا آخرة بإلهي أجمعينها يو أما غني النماء مع القوانين النمو مارتي أضمان قاضيس هل مربع حديث كلف دقيسة أنا أخرينها يا الحديث 407 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك رواه البخاري ومسلم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.